السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال كليبكن waxaan ku eegi doonaa hadii ilaahayno hadafka ama hanka uu qofku leeyahay hadafku waxa weeyaan waxa uu qofku doonayo inuu dhabeeyo waqti noloshiisa kamida waxa aad doonaysay maalin noloshaada kamid inaad gaadho ayaa waxa lagu magacaabaa hadafka waxa loo qaybiyaa saddex ka koowaad waxa la dhahaa hadaf dhow midna waxa la dhahaa hadaf dhexe midna waxa la dhahaa hadaf dheer hadafka dhow waxa weeyaan waa hadafka aad ku dhabeyn karto muddo gaaraysa sanad ilaa sanad iyo badh tusaale inaad macad luqad ka barato inaad xirfad mataqaanaa gacmeed ood ku shaqaysato aad barato kaas waxaan odhanaynaa waa hadaf dhow hadafka dhexe waxa weeyaan waa hadaf aad ku dhameyn karto 3 ilaa 4 sano waa adigoo tusaale ka baxay jaamacad kulliyad social ama adigoo ka baxay jaamacad kulliyad saynis caafimaad iyo waxyaabaha la xiriira 5 sano 6 sano hadafka noocaas waxa la dhahaa hadafka dhexe hadafka fog waa hadafka ugu aad mataqaanaa mainka ee targetka labadan hadaf ee kale ee ka dhow iyo ka dhexaba waxay dhabow yihiin hadafka fog waa hadaf qaadan kara muddo gaadhaysa 10 sano wax ka badan hadafka noocaas oo kale waana ka inta badan realka qofku mataqaanaa u halgamayo noloshana dadku waxay ku kala tagsan yihiin ama ay ku kala hormaraan waa hadafyada ay nolosha kale yihiin iyo hanka ay nolosha kale yihiin waxaan rabaa inaan kula wadaago inta clipkan socdo ilaa 3 sheeko ama qiso oo dad mataqaanaa kala kaxeeyay sheekada koobaad aan la wadaagayo waxa weeyaan waa insha Allah video gaar ah kaga hadli doonaa waa amirkii la oran jiray maxamed al-fatih wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo soo maray hogaamiyaashii dawladii Uthmaniyiinta isagoo maalin dugsiga quraanka jooga ayaa waxa uu maqlay xadiis uu u sheegay macalinkiisa quraanka xadiiskaas oo la taftaxana al-Qustandiniya wala ni'ma al-amir wa amiraha wala ni'ma al-jaysh dhalika al-jaysh macnaha waa maxay Qustandiniya waa la furan doonaa Qustandiniya waa magaalada loo yaqaan Istanbul hadda markaas wuxuu yiri waxaan nimca iyo khayr iska leh amirka furta iyo ciidanka hogaaminaya maxamed al-fatih waaga ugu yaraa wuxuu yiri waxaan go'aan ku gaaray inaan noqdo qofka dhabeeya riyada xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ee yiri Qustandiniya la furan doona taariikhanada qaar baa sheegay inuu dibajir ahaa markaas konton iyo dhowr dagaal wuxuu noqday markii dambe hogaamiyihii dawladda Uthmaniyiinta dhowr iyo konton dagaal oo uu galay oo qaarna laga adkaaday qaarna mataqaana uu ku adkaaday ugu dambeyn maxamed al-fatih wuxuu furtay magaalada Qustandiniya hadafkiisuna wuxuu ahaa clear inuu Qustandiniya ku soo daro maxay xerada muslimiinta wuxuu ku soo daray ilaa maantana way ku jirtaa marka waa hadaf iyo target uu lahaa maxamed al-fatih clip gaar ah ka duubi doonaa fatih iyo noloshiisa gaarka ah sidoo kale waxaa jiray maalin baa magaalada kacbada gidaarkeeda waxay isugu yimid 4 nin oo dhalinyaro ahaa mid waxa la oran jiray Abdullah ibn Umar midna waxa la oran jiray Abd Malik ibn Marwan midna waxa la oran jiray Urwa ibn Zubayr midna waxa la oran jiray Mus'ab ibn Zubayr labadan dambe walaalay ahaayeen saddexdaas xaawadaas dhalinyarada isugu timid meesha baa markii dambe iska sheekaysteen baa Mus'ab baa wuxuu saaxiibadii ku yiri oo bal qof kastoo maxaad noloshan hadaf nooceeda noloshan ka leedahay target nooceeda noloshan ka leedahay qof kastoo soo sheeg waa rag dhalinyaro ah meesha la iska sheekaysanay xadiis caadi la iska watay waxay ku dhaheen Mus'abow adigu bilow Mus'ab wuxuu yiri waxaan rabaa inaan baro saab ka noqdo Ciraaq sidoo kale aan guursado 2 gabdhood midna magaceeda la dhaho Sukayna bint Hussein midna la dhaho Aisha bint Dalh ibn Ubaydillah labada gabdhood inaan guursado Ciraaqna aan baro saab ka noqdo Ciraaq hadda waa wadan madax banaan oo wadankaas mataqaanaa hadeer aan dawladda lahayn dawladda rayidka leh weeyaan imanno hogaamin jiray Saddam Hussein wadankaas laakiin waagaas Ciraaq muslimiintu way midaysnaayeen marka qofka Ciraaq waxay mataqaanaa xilka noqda maanta wuxuu u dhigan yahay ama lamid yahay qof madaxweynaha Ciraaq oo kala hadlay laakiin waagaas barasaab ayaa loo diri jiray Ciraaq oo dhan Sham oo dhan oo wadankan hadda Syria la dhaho dhan ka xiliyadaas dadku way midaysnaayeen Mus'ab saas yiri laba saw wuxuu iska dhigtay waa inuu barasaabna noqdo labada gabdhoodna guursado Urwa asaguna wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo biin xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo fiqiga aad u yaqaana ka saddexaadna Abd Malik ibn Marwan isaguna wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo khaliifka ama madaxweynaha muslimiinta
كأفرادنا وحوها عبد الله بن عمر بن الخطاب سوينا وحيري جنة الله يعني رجينا صدح ذنين هراء وحي قبسين وح متقنا دون خلقوا بين كرا أو أنا أركي كرنا كو مصعب سوهرت الرئيس وقاري لو بدي قبل دو جرس سكانية عايشة برا صاب نو كان نقضي محي عراق وما أنت هدي ما أنت هدو شو لها وحنقول لنا لها سوى أحمد حين عراق إن عروة سونا سيدا كل وقاري أو بخاري مسلم بوحكي وريه الصحيحين كمان كل شو كصدحات وحوها عبد الملك بن مروان وقامياش وحوق قبلنا دولة أمويين تسوه قاميين وكمل هالسونا صدح ياسبوي قال يعني وحصهري صحابي ولا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر نولوه رجينا بدان ما دام وسووا قبصي وحكوا صابت المتقان آخره سنة ولو رجينا مركا قفكوا وحا وانتوا أدونك تشوقه وتارك ثلث وحنون إنه هدف يدهم قالوا إنك لو قيمك إنه هدف آخره هدف الدون قفك مسلم كا فارس تارجت كيسو كوباد أما هدف كيسو كوباد سواء إنه كذب تا هدف كمتقن آخره الدون كنت اللي تشوفون إن هالمامين بالغربة وهتسكت ضيده إن أضوحون ربيسو إنت ندرش شوفته مرة بين ديراته حلقة دني أنت سكوا جوجويني أو ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.